waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn garaadka beelweynta Aadan Axmed garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi Ducaale garaadka ayaa ka soo kici timay caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga soo dhaweynta garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi Ducaale ee ka soo qayb galeen kumanaan bulsho weynta Buuhoodle kuwaas oo ay horkacayaan cuqaash iyo waxgaradka culimada haldoorka kooxda hidaha iyo dhaqanka ururada haweenka iyo dhalinyarada iyadoo lagu hortagay deegaanka 117 kiiloomitir dhanka koonfureed ka xiga magaalada Buuhoodle garaad Cabdilaahi Axmed Sulub ayaa loo galbiyay magaalada Buuhoodle iyadoo lagu soo wareejiyay shaaracyada wadooyinka halbowlaha ee magaalada Buuhoodle ugu dambeyntii kumanaan shacabka gobolka Cayn ayuu kula hadlay garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi Ducaale garoonka kubadda cagta ee Bismillahirrahmanirrahiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan beelweynta meesha isugu timid ee Aadan Axmed garaad waxaanu halkan maanta iyo dhulbahanto oo dhan waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi oo horey aan u shaacinay koob iyo 20 bisha 12 hadii ahayd ma aanu ku caano shubi doono garaad kugu maalay garaadka waxa la garaad soo dhawow waa dalkaagii waa dadkaagii waa dantaadii waa diintaadii waxaan ku leeyahay garaadkii lagu nasto ee lagu nagaado noqo garaadkii nahanta ee loo hagaaga noqo garaadkii lagu hirto ee lagu hiloobo noqo garaadkii lagu dago ee loo duceeyo noqo diinta sharafkeeda iyo daacadnimada eeg dantaad noo hayso weliga hanaga dayicin agoontiya ubadka iyo kii taalka daran midkii soo ururiya ee noo arrimiya noqo ilaahay amarkiisa iyo aayadaha ku dhaqan idilba Soomaali weyn kay adeecdo noqo islaamka oo dhamina ku wada ikraamo noqo helidiinow Allah waayatiinku si bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta bishu tahay 13 bishii 12aad waxaan maanta ku soo dhaweynay magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn garaadka beelweynta Aadan Axmed garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi waxaanu leenahay garaad ku soo dhawow deegaankaaga aad ku dhalatay ee lagu doortay inaad u noqoto hoggaanka taasoo lagu caleema saari doono 21 bishan 12aad aynu ku jirno garaad waxaanu leenahay soo dhawow baanu ku leenahay kugu maalay baanu leenahay garaad kugu maalay soo dhawow garaad laga jiidis lahayno ودونو شرف وين بان وعلم اللولينيو عدد دار كيسانيو عريداو سوغيني إلى عيني يدولو قرد كودي عسلايو عبد الله يا باني كما علينا isi soo bixinaan soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha leh aan horaan waliga lagu soo dhaweynba aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa aad iyo aad dhamaantiin wiil yar iyo gabadh iyo hooyo iyo aabbo iyo nin wax garada iyo cuqaal iyo maxaa ku yiraahdaayay nin garbood kale iyo qof kasta oo ka qayb qaatay oo bulshada kamid ah hadday tahay ciidamada maxaa ku yiraahdaayay aqoonyahanka cid kasta aan ku soo koobay cid kasta oo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa aad iyo aad in badan baa taagnaydeen bannaan waxaa laga yaabaa inaad xataa shalay iyo daraad hawshan aad ku jirteen hawlihii horena ay ogahayna ay idiin horreeyeen aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa aad iyo aad ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu qof kasta oo ka qayb qaatay in ilaahay khayr ugu bedelo ma sha Allah baan ilaahay uga baryaa amiin dhammaantiina ilaahay wax ka baryaa ilaahay nabadgelyo iyo xasiloonaan wada siiyo amiin buraadkana ilaahay wada qumiyo amiin banaanka in badan baa taagnaydeen idinku hayn karimayna inta ka badan aad iyo aad waan jooganaa oo hadii Allah idmo hadda waa sunnimi marka insha Allah hadii ilaahay idmo in badan baynu soo imaanaynaa wada hadlaynaa Cabdi Khaalid Cabdi Rasaaq jaamac wararka telefishinka caalamiga ee bulsho Buuhoodle